ninkayga saaxiibada qiimaha badan filimkan waa ku raaxaystay weliba inta bilowda ayaan dhamaystay ninka lagu magacaabo Randeep Hooda brilliant performance uu sameeyay sheekada backstory uu leeyahay xitaa caadi ma aha qaabka loo dhigay filimka laadarnimada minaysanka qamarjanimada uu matay anaa yaabe sani doona larger than life character wixii lagu yaqaanaa Damura Balakrishna MBK kale iyo superstarada koonfur markay shaashada soo galaan dab iyo hola u kicinayeen oo kale ayaa loo sameeyay alle lehe intaan sani dool soo daawanayay waagi waxa ay ugu dambeysay filimkii Indian oo sanadii 2001 uu sameeyay film sidan oo kale loo present garay hadii noqoto dialogue adeegsanayo actionada uu sameeyay xarakaadka emotionka waa almost hadda 20 sano kadib ayaa waxaan arkaynaa ama 24 sano kadib sani dool oo ugu dambeyntii director cadaalad falaale star powerkiisi aura uu leeyahay macnaha jinniyaha ninkan uu leeyahay dabcan inuu cadaalad falaale raganimada sani dool waligiis lagu yaqaan film CD salaaqeen sor iska baday waagi hore jaatag iyo gayaal iyo dil aad waaba ka sii daran tahay gadaar iyo Indian iyo waxa waa nin raganimada masculinity ku weyn tahay u baahan marka sheeko iyo director present garay waxa soo waa odaga saas oo dhiiqa u galay hadda laakiin dhiiqada waxa ka soo Gobijan Dimeleni thank you Gobijan Dimeleni sababtoo odaga waxa muujis in still laga faa'iideysan karo what a presentation uu sameeyay sheekada filimka aan guda galay marka saaxiibayaal waxa waaye filimkan wuxuu ku bilaabanayaa simple horta sheeko oo twist aan taan qiyaano mala caadi narration okay la sameeyay bil wala dhamaad waxa la fahmi kara laakiin maska ayaa waxay kaaga dhigaysaa ibootada iyo wabsiga ababa si fiican u fariisan hada fadhi ka qaldayan ku dheen ninkii Randeep Hooda wuxuu ku matalaa Rana Tunga ku matalaya Sri Lanka ku nool yahay jabhadii waxa soo waa laga guuleysana dawladda soo qabanayso waa lagu shaqeysanaa waxay faagaan macdantii dhulkii waxbay qodaan asiga iyo walaalkiis kale ninka lagu magacaabo Vineet Kumar oo ku jila doorka Samulo iyo team kale to ayaga maalmaha kamid meel qodayaan god qodayaan waxay ku arkayaan sanduuqna oo dahab helayaan bis waay marka sanduuqa dahab markay la god ku dhex jiraan askartii u dhamaanay askartii laana meesha waxa ka bilaana mission action aan inaba caadin war Randeep Hooda si loo present garay hadda runta laga hadla tooraba waa ninkaas filimka soo jira sababtoo ee godkay ku jiraan iyo markay dahab ka helaan suuxu abaabulayo askarta u baabi'inaya asigana saaxiibadiis midda iyo qor uu shafi karaan intay askarta laayaan ee ka soo baxsanay dahabka xitaa saaq sanduuqa dhabar ku soo xiranay xeebta imaanayaan doontooda ku ridanayay Sri Lanka dhan waa ka baxayaan waxay ka soo dhacayaan somewhere under Bangladesh talugu imaanayaan ayagoo dabcan waxay iska wataan garamadooda iyo dahabkooda wataan xeebta soo dhuumanaya xeebta soo dhuumanayaan markii dambe waxa qabanaya askari la wadada u taagan mugdi توش لو إفنا رب وساق بنا وسوى وساق فعلا كل واحد حبسه كان سنهاية توجاتين أنت كي مادم باكستان ما كي مادم بنجلاديش ما كي مادم بلاياتين كم وسوها نكنا وحولية أنا سريلانكا كإيمانه أي ماشي مسكسو جلسين الله ودن كديل سوجل شرعي لو بان لو مشالو تريبك سوق الشامية وحودا هدا إن سائلين قراعة ويا بدونتين صاحبك عثمان Randeep Hooda dahab gadaal ugu jiray xabal soo bixina miiska u saaray dahab kana histaawi le waraa iga qalay amal waxaan wuxuu leeyahay inta ku keentay amal lix ahaayeen nin kasta wal xabad dahab intaan la eego meesh soo saara askariga asaa kala badbadanay dahabka la aruurina hay maxay idin sameeyo leeyahay sharciga wadan ku joogno sameeyay nin walba waxa loo sameeyaa citizenship loo sameeyaa bis magaalkiiba qabsanayaanbo waxa waay saasay tuulada kula wareegan Andhra Pradesh dhanba kula wareegan in dahab intaas la eeg watay meesha suldaanka noqona Rana Tunga loo bixina dadkii uu baabi'ina xasuuqa qofkii ka soo horjeestay waa dila markaas waxa waay boosmindada waxa ku aragteen baasha oo dibiga oo dhulka beerta falayso meedka lagu arkay maalmaha kamid ah beerta la falay waxa lagu arkay meed tira badan meedka soo arshabo ilmi xaafada waayo oo ka soo horjeestay Rana Tunga askariyada amaana siyaama khair oo team wada taxriisa dad yaa ka dambeeyay hawshan ii sheega markay dam cunigeera wuxuu dhahay Rana Tunga ka dambeeyay gabadhan way soo baxaysaa laba gaari jiiba soo qaadanay iyadoo gabdho badan oo ciidan wadata iyo la socdaan iyo ciidan kale oo askari ah markaas askartu waxay maqlaan gabadhan waxay u socotaaba Rana Tunga u socotaa nimankii dhan waxay walaalaha waxaan ku sheegnay ninkaas wax laga qaadaa ma anaga ilmaha korsanaaye wax alla wixii nimo waa ka wada harayaan kulli waa ka harayaan yaa ku soo haraa ayada iyo shan gabdhood kaliya gabdhii waxay dheesahay yaa raaca ninkaas aan gurigiisa u tagay waa soo xiraa waxay dhahan kaama harnay dhamarow waa ku raacina gaariga soo qaadanayaane waxay iimaanayaan guriga Rana Tunga iimaan waxay ku soo galayaan feer iyo faralaab iyo waabsi harantii ku soo galayaan adi markay guriga soo galaan wax qurbadaan maamo waxa u joogtaan Randeep Hooda hooyadiis qamarji ee dhagta inta la agta anaya dhag masaamiya tubaaka la cuna sigaarka la shadanayo typical si loo present garay duqda caadi duqda xataa waa yaabaysa kadib ayadoo buuq meesha ka socda waxa soo baxaysa ragina ka sandara doorka bariba mataleysa marwada Randeep Hooda waxay dhaysaa buuqa maxay tahay waa isdajiyaysa hooy adiska fariiso idinkana kaalay tartiibtiina gudaha ku hadana buuq lama baahne lixdii gabdhood askartii labadii guriga gudaha soo gashanaysa waxay dhaysaa maxarabti idinka tartiiba hadarabtina sayga xirtay waxay dhaysaa warqad cadeen warrant la imaw cadeen uma baahan dhaysaa dad soo laayo soo xasuuqay cadeen dadka ku cadeen inaan wada jirtay dhaysaa igu wacninka aniga qayle ee buuq maro bistoole la soo baxay siyaama khair oo iswaale tan ku aadinay darbaax inta lugta bistoolada laga qaadana war ragina ka sandar ayada gangastarada filimkan say u jish caadi ma
markaas waxay leedahay laadareentina guriga gabdhaha lagu soo xirtay shaqadina ka qabsan la inta la garaaco dharka dhan waxaa laga siibaa uniformka qol lagu aroonaa 7 gabdhood ayagoo way qaaqaawan waxba wadana qol lagu aroonaa intee u tagtay waxay leedahay dhageystay leedahay intaana ku ekeemaan waa idin dili karaa waxay leedahay qofkii guriga soo galna kaga badbaado odageygana waxay leedahay magaalada asaa ka taliya meeshana ku jiraysan carwakaasa yaa idin bixin doono yaab ka dhacay anaa yaabay haddana waxaa lagu tusaa sheeko Delhi xarunta ugu weyn ee Hindi laga maamulo ayaa waxaa joogta Ramya Krishna joogto oo madaxweynaha dalka matalaysa waxaa la soo diraa marka box dhan oo warqado ka buuxaan boxka markay furto warqadii waxaa ku dhex jiraan qof walba suulka iska soo jira suulka jaf iska siiyeen dadka tuuladii Warana Tunga baabi'iye gabar yara warqada soo qortay madaxweynaha warqada hadii ku soo gaarto xaaladdan ku jirna 24 saac gudaheeda waa baabi'irnaa wax nolol noo hala malahan ninkaas xoog nagu haysto waxaan suulkan u soo dirnay inaan ku tusno dhibaatada aan ku jirno hadii 24 saac naga soo gaari waayeen qof walba qoortiisu jara qoorta lagu soo diraa maamada intee kala badbadatay waxay u wacaysaa ninka CBI officer kugu soo Jagabati Babu waxay dhasay amar waaye waxa aadaa deegaankaas Matubuli ma la tag waxa ka jira soo ogow ninkaasna hala soo qabto marka jidku soo galaya Jagabati Babu socdaal u soo baxaa diyaaradu soo candar imaana kadib waxa la wadada xun baawur ku sanana baawur qaadana waxa loo soo sheegaa Rana Tunga Allah waxa soo socdo CBI officer kugu soo u soo socdo tuuladaada kadib wuxuu wacaa wasiirkii wuxuu leeyahay ninkaas tiga xal wasiirka jidku u galaa wuxuu leeyahay hayniyo soo dhawaa meesha isku tagin lacagta rabta anaa ku siinaya Delhi kulaa dhaha meesha wax ka jira male CBI wuxuu leeyahay Jagabati Babu inaad tagala jirto leeyahay meeshaas kama baaqanayo dhahaya iga tago dhaakiyo ku qeylnaa wuxuu dhahaa kiiskan ku soo baxdo kullu leedahay adigana wuxuu dhahaa wadooyinka Delhi lagu jiidaa dhaha wadida ninkan lacag in la siiyo jidkiisu iska sii wadana kadib sheekadii waxay isku bedelaysaa ninkii waxa lagu tusaa dadkii oo dhibaataysan waxba laga qabanin yaa noo gurmanay yaa noo gargaaray sanadooda tareen saaran iska socda lagu tusaa iska baashaala hees la qaaday tareenkii ka soo dagaa tareenkii halaaba wuxuu leeyahay meesha intee waa Allah waxa joogta la duleedka andara joogta la hays maxaa taayalna tareenku xala 5 saacadood meelahaas at least waa si cilada ku jiri doona bis wuxuu leeyahay meelaha meel wax laga cuno ma taala malaha Allah meesha maqaayad xataa kuma taalo halkaas meel fog loo tilmaamo oo saxara ee meesha waxa ku yaala guri yara la daa cunto keenis meeshii uu tagaya waxa joogto Zarina Wahaba joogto Aditya Banjoli xaaskiisa Suraj Banjoli hooyadiis inay taan jeclaa film ku jirto meel yar u furantay may ayada ma mid kale waa laakiin hadhow ayada filmka soo galaysaa maamadii uu tagaa wuxuu dhahaa waxa cun isii waxba siinaysaa wixii asoo iska cunaya qalaalkiisa xameesho waxa soo galaan baanda badan oo xarfaana soo galaan cuntadii ka daadanayaan kadib maamadii qashqashaada uu tagaa wuxuu dhahaa walaalo cunteeda iga daadisay raal ah ila sorry bool idhan markaas inta ku qosnaa anaga weliga wax madaalagin adiga yaata amal waa kala tuuraan odagii nimankii intuu qabto qarbado oo garaaca nafta markuu qaado dhaayaan anaga maxaa naga rabtay midaa baxsan ma kii xataa baabuurkiisa tuu qabto uu garaac u leeyahay ma raali gareeyay wuxuu leeyahay aniga kuma raali gareynayay ninkii soo diraa joogo yaa waay u dhaha mogtay raam hebelo u dhaha odaga kaas igey u dhaha kaas raali gelin kara adimaba ka reebo waa oday iska dabcan xaafad iska oo hantiilo oo dabcan xaafada ka taliyo waaye dadkii xaafad soo waabsanaa guriga sanad lagu imaanaa fir iyo waxa lagu qaadaa haraantii dharbaax maxaa ani idilay guriga rabtaa raali gelin adaab idilay sida wuxuu dhaha dhageyso u dhaha team adigu la shaqeynaa cuntada iga daadiyam markaan raali gelin way diideen waxay anaga ku maraageen mudanayna ku gelina adaa liika keen raali gelin kiyo goosaaka garaacasna wuxuu leeyahay aniga idinine nin iga sareeya jiro dhahaya samuula ku raali gelinay sabax waxay ugu tagayaan marka meel oo canshuuraadkii waxaas lagu qaado gudaha waxan dadka uu garaacay xariifkii samuul waa Vinit Kumar waay Randeep hore walaalkiis ka yar qolkii lagu galaa kii inta sanad dhaaf soo jibiyo oo kii wuxuu leeyahay marka samuul adiga maxaa aad wuxuu leeyahay inta waxa ay keenay cuntada laga daaday musaafiran iska ahay nimankii iga daadeen way diinara la gelin waxay dhahan raama ku raali gelina raama marka umaada garaacana wuxuu dhahay samuul ku raali gelina samuul aniga waa kii khosal wuxuu dhahay ma raali gelin rabtid baha sanadoo inta geesaa la garaaco wuxuu bilaaba asigana hee feer iyo farlaab kii waxaan ku dhahay agshamada ku jiro waa luwa sas alaabta riboomka ku jirto waxaan caadi in si loo barasanta garay dialogue waali xariifkii markii la garaaca asigana samuul nafta laga qaado wuxuu leeyahay war hadilnu leeyahay aniga ma taqaana qofkan la dhasho leeyahay ninka magaalada uu awood badanaan walaalkiis uu leeyahay Rana Tunga asaaba raba igeel la saaxiibka inta la soo wado gaari weyn laga soo buuxinaa ku dhacay oo alaabtii wuxuu soo wadanaya oo alaabtii isha lagu qaado dhagaxanta oo gaariga waa weyn intuu soo qaato ka soo buuxisho kulligood oo guriga keena soo u soo galay guriga maaska caadi ma dadkii intuu qarbado wuxuu leeyahay Rana Tunga u baahanay Rana Tunga markuu soo baxo isku bootayaan ugu dambeyntii Rana Tunga u jeeda dadka dhan hortiisa inta lagu garaaco ayaa wuxuu leeyahay marka asigana qori uu soo qaadana sanad walba qabana sanad doon la bistoolo soo baxsana markaas Ragina Cassandra dabcan Randeep hooda xaaskiisa waxa leedahay u kaadi leedahay meeshan dagaal iyo buuq marabnee markaan dabcan ka aarsanayna aftamile ku hadla xil markaan ninkan gaadeenay hadda bal xalliya xaajadiisa buuqan ninkan in laga guuleysan karo ma ahan bis Randeep hooda qoriga hoos u dhigaya
wuxuu leeyahay saas deebta wuxuu leeyahay waa ku fasaxaya sorry raali ah ma maqalna la codkaaga kor u qaad ciil la qabanay markaas oo dana leeyahay sorry codkaaga aad ugu raaxaysto mudana waa mahadsan tahay dhibkaana ma dhicin leeyahay hadii kuwii aan meesha maqaayada ku soo garaacay raali ah way dhiilaayeen waa iska tagi laakiin wuxuu dhasan u soo garaacay kugu imaade adaa raali gelin isiise waa mahadsantii uu leeyahay marka waa baxaya markuu albaabka si bixi rabo gudaha waxa ku jiraan gabdhii askarta la haysta marka albaabka markuu ka bixi rabo ayuu Sanadol wuxuu arkaa marka dhar uniform oo gudaha yaalo arkaa uu soo laaban markaas in arkan balaayla maxaa nagu soo celishay dhaaraan dib wuxuu leeyahay maxaa ku soo celinayo waaba ku raali galay naga tag ma yuu leeyahay gurigan waxbaan ka dareemayaa wuxuu dhahay kow markii aan wuxuu dhahay aan nimankii tuugada ku soo garaacay maqaayadii ninkii ii sheegana u tagay Raama lacag badan guriga u taalo dhaan markii uu soo wada walaalka aan garaacayna meesha ugu taganay sharci guriyo badan si sharci daraa wuxuu dhahay ku document gareysanaya waa si shaki u dhahay guriga hadda marka imaadane wuxuu dhahay waxaan arkay dhahay shiraaca gaariga saarana gaari askar booliis u ahayo dhahay haddana waxa guriga kaga dhex jeedaa dhahay uniform dharan kaga dhex jeedaa uu leeyahay waxba qaldan waxa qaldan inaan ogaado handii board intuu waxaan aqoolay waxa qaldan wax ka garan ma lahayn meesha ka tag Sanadol wuxuu aroornaa uniform kala adu arko hal toddoba uniform kala duwan jajeexan arka dharkii isku arooranaya shan qar gabdho dareema albaabku uu tartiib intuu u jabsho uu furo oo dharkooda u dhiiba gashto dhaha gabdhii dharkay gashanayaan markaas randiib hore lagu kacaalay markaas guriga waxa ka bilaabanaya feer iyo farlaab iyo qarbudaad intuu kulli garaaco oo dabcan lis garaaco ayaa wuxuu leeyahay sheeg gabdhahana wadana kadib markaas lagiina gasandar soo dhaxgalay soo leedahay niyahow ninkan iska day gabdhihiisa ha wato markuu wato anaga naqaanay gabdhihii wadanaya markuu gabdhihii wato xaaskiisu xalada niyahow qorshe dagaalada ninkan saan ma laga guuleysan karay qorshaha loo dago bis markay jidka galaan wadada galaan oo si socdaan Sanadol iyo gabdhiyo gaari jeep wataan waxa lagu dalbayaa ciidan lagu dalbayo wadada loo galaa mid kamid gabdhiya laga daawaca actionki dagaalka ka badbaadaya gabdhihi mid kamid way geeriyoon qof biyasi wana tuulada cidlo waa wax jooga male waxa soo wacay Raana Tunga waxa la hayay ma aragta Allah xanuunka hal gabar la hadda ka dilay gabdhaha dhiyay walaalihi waa hal u dilaa Allah mid kastaba naftaruqan ka siinaa Allah cid iga fakanaysa malahan markii ugu dambeyntii adaa ku dilaa meesha rafaad ka jiro tuulada wax jooga male markaas waxa laga sheekeynaa tuulada dadka in dabcan xoog looga watay guriyahooda laga seexday meesha macdan laga qorraba dhibaato ee jirto Raana Tunga awoodaas uu leeyahay wixii markuu ogaado wuxuu go'aan ku gaaray aan wacd ku maraa ninkaas inuu ka taqaluso cidna uu sareebin meeshaas marka waxa ka bilaabanaa missionkii ahay saldhigu tagaya saldhiga horta actionka uu qatarsanaa ka dhacay bismillah ana yaabaan ku saldhiga markuu tago askartu u tago wuxuu leeyahay waxa rabaa dacwo in laga qoro oobiga waxaan dacwo ka ahay Samulo iyo Raana Tunga askartii ayaaba ku qoslayaan markaas oo askartii intuu qabto uu garaaco askarta soo u garaacayaan ku dhana yaab laajad life waxa loo tahay music iyo balaayo askartii gabdhiya hatta wax ka garaacaya meeshii waxa imaanayo kadib intii askartii isugu tagaan Sanadol wax ku dhuftaan xirxirayaan waxa la wacaa marka Raana Tunga walaalkiis cunugii yaraa Samulo waxa la ninkii oo ku ceebeysan dilay ku dhibaateen jiraan ku haya xabsiga wuxuu leeyahay gacan iga saarana imaanay xariifkii markuu imaado waxa meeshka dhacwalaya xariifkii macna askarta la isku daraakii inta la dilo la calqa meel la suraa markaas Raana Tunga waxa la xanuunka ugu weynaa dareema Allah walaalkaas sida hadda loo galay oo si bururaay kadib hadana ultibadi waxa la isku qabanaa meel banaan ee waxa ka dhacay si la isku garaacayo markii dambana dadku ku wari dadka dilayaan laakiin hal mid revelation sheekada ku dhex jirta markii oo Jagabati Babu magaalada uu soo gaar rabo dadkii wala baabi'in raba leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu wacana commissionerka ciidamada military ugu sareeyo wuxuu leeyahay waxaan u baahanay qof aag ka dhow ama qof ii soo diray military gurmad ninkaas Raana Tunga looma gali karo Jagabati Babu dhaha taliyaha marka waxa wakii waa Sirmurilo wuxuu dhahay ikaadi u dhahaya eerido ciidamadiisa fiirna wuxuu arkay GPS ka arkaa meesha inuu joogo Sanadol wuxuu leeyahay meesha uu cabsan u leeyahay jaara joogo libaaxidooda ayaa meeshaas joogo qof kalena ma wuxuu leeyahay brigadier commander ciidamo wax yar marka waxa lagu tusayaa behind the scene oo Sanadol ciidamada ahaan jiray soo dagaalamay iyo jabhada leeynay ninkaas joogo li asaa ku filno le kaligiis ciidanka battalion uu u baahnaa battalion guud uma baahnid ninkaas baabi'ina marka saas lagu ogaana inuu yahay askari wax allaala wixii meesha joogan intuu xasuuqo oo cagta mariyo macala randiib hooda oo soo calqaab dabcan kadib dadku u dhiyo dadka calqaano dilayaan sheekada marka meeshaas ku soo ilaanaysa haday jirto marka weakness oo filmka Jad uu leeyahay waxay tahay saxabiyaal si kanaafka damwaadiic farabadan ayaa daha laga hor waxay aad sida uu ku socdo sheekada inuu wada xaliso dhaxgalna Yunaniya macdan meel laga raadinayo hebelow kana soo dhaxgalna sheekadii daraamada aad loo dheereeyay hadii sida haafka hor halka saac oo sorry ball ku socdo si kanaafka dambe lagu wadi lahay waxaan isleeyahay sheekada dhaxgalinahan shan xidig wasina dhankayga laakiin hadda filmka saddex xidig ibar uu yahay laakiin jilinka Sanadol uu sameeyay qaabka loo barasinta garay awgeed aniga waxaan si afar xidig si wad movie randiib wadana sheekada uu leeyahay back story-ga meesha uu ka imaaday wax dhan way cadeen waxa xooga cadeen marka mushabbah ku jira Sanadol oo ciidano ka tirsan laakiin waxay in loo sameeyay back story inuu family leeyahay inuu ciidan ka tirsan yahay wax yar oo 15 minute oo kooban Sanadol macana dil siin la waxa isleeyahay sheekadu waxay noqon dab iyo holac anyhow laakiin Jad dul ma dhacay dhankayga afar xidig waay waliba Sanadol randiib hooda equal waa caadi ma